السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنالكيga فردوس isku filan waa mar kale new video. Please haddii ay tahay markii kugu horeysa oo janaalka soo booqato waxaan kaa codsanaya inaad subscribe gareyso, asxaabtaada kale la sii wadaagto. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. asxaabay soo dhawaada, aad iyo aad ayaa idin soo dhaweynayaa. haddii aa hore ila joogi jirtay waa mahadsantahay, soo dhawaayaan ku leeyahay. haddii ay ugu cusub tahayna soo dhawow, waa idin soo dhaweynayaa. maasha allah tabaarakallah. walaalo badan oo igu cusub ay jiro new subscribe soo dhawaada ayaa idin leeyahay. insha allah janaalka hore u gal, fiidiyoyada horeetoodo dhan soo daawo. insha allah wax ku anfaca ka heleysaa, because su-aalaha qaar laysoo weydiina waa su-aalahan kasoo wada jawaabay oo janaalka ku wada jiraan. marka waxaa idin leeyahay hore u gala. insha allah waa ka heleysiin wax badan oo idin anfaco biidn illaahi tacaala baari hadduu ilaah yiraahdo. alxamdulilah, ilaah ayay mahadoo dhan u sugnaatay soo celiyay mar kale anoo caafimaad qabo. idinkana waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtiin. inta xanuunsan ilaahay subxaana watacaala allah caafiyo, inta dhimatana ilaah u naxariisto, inta muraadle muraadkooda alla subxaana watacaala allah u sahlo, inta safarka allah u fududeeyo. walaalaha wadamada muslimiinta u hijrooday oo ku cusub ilaahay wadamaday tageen oo dhan kheyrkiisa allah soo xijiyo. kuwii hore u joogana kuwa wax ka faa-iiday ilaahay subxaana watacaala allah ka yeelo. asxaabay soo dhawaada. waxaan rabaa maanta insha allahu tacaala fiidiyogan uga hadlo qaabka wax loo rajiis gareeyo marka azhar rajiis gareynaysid. insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo 2 sano ka hor aan ciyaalkayga azhar ka rajiis gareeyay, laakiin hadda waxaa isbedelay. maxaa yeelay meelihii aan ka rajiis gareynayay marka hore oon tagay waa la kala bedelay. marka insha allahu tacaala waxaan rabaa inaa dadkii hore u yaqaanay oo yacni hore u ogaa sideedoo kaleetoodna ay ogaadaan in wax laga bedelo meeshii. walaalaha ku cusubna si ay hadhowta ugu fududaato insha allahu tacaala hadday u baahdaan inay azhar wax ka rajiis gareystaan. insha allah waxaa idin leeyahay haddii aan qaabka aan u sharaxo yacni wax walbaba sida eegiin ay kuga sharaxi doonaa, laakiin yaa dhib loo arkin. insha allahu tacaala waa wax hal mar le aad sameynaysid. dhowr beri 3 beri aan iskaga daba laabanaya, laakiin 3daas beri kadib dambe ma usoo laabanaysa, because ilmahayga 2021 aan ka rajiis gareeyay, dib dambena uguma laaban. marka hadeertaana baby yaraa ka rajiis gareynaya oo maxaa la dhahaa reception class iyo AKG2 wadankan waaye. marka alxamdulilah ilaah nabadu iguga soo dhameeyay. 3 beri oo aaday waa ilaahay subxaana watacaala wuu ii dhameeyay, waa soo kala tuuray. marka haddii aad u baahan tahay cunug aad azhar ka rajiis gareynaysa, horta waa cunugii 13 sano ka yaryahay oo year 6 iyo wixii ka hoose ay tahay primary bes. haddii cunuga primary oo dhaafo oo year 7 iyo oo gaaro, horta kama rajiis gareysa kareed. hadduu quraan walba yaqaana xataa waa inaa cunuga wadankan iskoolkiisa oo soo maro. cunuga markaa iskool wadankan oo kuu soo maro kadib sanadkaas kadib taxwiil waxa la dhahaa jiro ama wareejin, waa soo wareejin kartaa iskool azhar ma kusoo qori kartaa. laakiin calaa tuul year 7 ma ka bilaabi karta ama year 8 oo kaleetood asoo cunugaaga systemka madanka masar ku jirin. markaas ula socdo insha allah. walaalo badana arkaa year 7 cunugayga rabaa inaa uga bilaabo. year 7 daa uga bilaabaysa azhar maaha tarabiit caliina ku bilaabe, andan kadib sanad kadib waa soo wareejisan kartaa insha allah haddii oo ilaah yiraahdo. laakiin waxaan ka hadlayna waa primaryga year 6 ilaa iyo nursery oo KG1 intaasaa yacni ka rajiis gareysan kartaa insha allah hadduu ilaah yiraahdo. waxaa ayadana sida qaabkan oo kale loo maraa waxay tahay bucuud alislaamiya. marka ilmaha ka rajiis gareys waa azhar bucuud 13 sano iyo wixii ka weyn waaye. asigana isla qaabkan oo kale loo rajiis gareeyaa. so markaa ku waxaynaysid waxaad tegaysaa meesha oo bucuudaa tegaysaa. bucuud markaad tagtid formaa buuxinaysaa. foomka awalka hore adaa buuxsan jira, laakiin hadda ayaga kuu buuxinayo
waxyaabaha isbedelay kamid tahay. foomka ayagaa kuu buuxinaya, kaa rabaan cunuga dhalashadiisa, baasaboorkiisa iyo adi iqaamadaada oo dhacsanaynin aa lagaa rabaa. bis intaas markaa u dhiibtid foomka kuu buuxinaya. foom oo online waayaa oo kuu rajiis garaynaya, asaa gacantiisa kuugu buuxinayo. ilaa qaraasi ani maalinka dhaweyto teleefankeyga internetka ii shaqey waaye, maadaama xoogaa uga yara ciladeysnaay. markaas teleefankiisa oo haysto ninka igaga buuxiyo, kheyr allah siimaado ha ka gaarto. ilaahi subxaana watacaala mahadoo dhan u sugnaatay, asigana u mahad celinaya maadaama uu caawiye. intaan dhahay internet ma haystid, dadka qaar masaarida qaar way lugooyo badanyihin, dadka aada u lugooyaan, waxay ku dhahaya internet keensa bax. laakiin imuusa weydin, alxamdulilah, ilaah mahadoo dhan u sugnaatay. teleefankiisa igaga buuxiyo. waxaan u dhiibay iqaamadeeda iyo baasaboorka baybiga iyo dhalashadiisa u dhiibay. intaas markaa u dhiibay asaa ii waxeeye labada foom oo soo siiyey. 2 foomaa lagu siinaya. 2 foomaa soo qaadanaysaa, gurigaa keensanaysaa. maxaa la dhahaa, waa buuxbuuxine, labadoodaba waa buuxine, saxiixaada ku dhijinaya, cunuga sawirkiisa qaadaysaa. soo meesha dhiigga looga qaada tage 200 oo geniya aniga ku rajiis gareeyay marka hore, laakiin hadda 300 oo geniya laga dhigay. 300 aa dhiibaysaa. soo dhiigga lagaaga soo qaadayaa, jaldiga meel dhaa maqaarka laga fiirinayaa, dhagaha iyo waxaasi ka fiirinayaan, dan waa kasoo tegaysaa. soo marka 4 days to 3 days way kaa maqnaanaysaa, kabacdi waa tegaysaa, waa lagu soo siinaa. mar alla markii lagu soo siiyo waxaa u laabanaysaa meesha aa marka kow aa foom kasoo qaadatay. waxaa qaadaysaa dhalashada oo cunuga oo ayadoo oo turjuman oo af carabi ku turjuman. meeshaa lagu turjumaa cabaasiya meel ku taala lagu turjumaa. 200 oo geniya lagu turjumaa. hadda dee badiya mooga laka 200 ku ogaa. maxaa la dhahaa, isla sanadkaan leena turjumaani tii hore oo awal ku xariisay jira way diiday. meel cusub hadda intay furteen waxay dhaheen meeshaas laga soo turjunto. marka meesha cabaasiya aan kasoo turjumnay warqada dhalashada ayadoo turjuman, ayadoo turjunaynin, baasaboorka oo baybiga iyo baasaboorkeyga iyo qaamadeyda intaasba koobiya ka wada sameynay. originalka waa qaadanay, koobina waa ka sameynaysaa. adin kugu soo celiyo baasaboorka cunug alle cunugaa rajiis gareynaysid iyo dhalashadiisa waa inay islahaadaan magacyaasha. please haddii aa wax magaca bedeshay, warqadaa ku bedeshay waa inaa wadatay, taas la socda insha allahu tacaala. looyar hadduu yahay wax alla wada efa uu yahay waa inaa warqadii aa wadatid. dhalashada baybiga iyo maxaa la dhahaa baasaboorkiisa, baasaboorkaaga iyo qaamadaada intaas waa koobiyeynaysaa. foomkii lagu soo siiyey meesha kasoo qaadatana waa soo koobiyeynaysaa. meesha malaf oo file oo waxaaga dhan malaf ay dhaan, laakiin waa filekaasaa soo gadanaysaa. waxa dhanaa gelinee meeshaa tegaysaa. soo marka ayagaa haddana kuusii waxwaxeynayo kuwa meesha kow aa kasoo qaaday. ayagaa waxay ku qorqorayaan meelaa la geynayaa oo isla meesha waa lagu saxiixayaa. waxaan rajeynaya inaa fahmi doontiin biidn illaahi tacaala hadduu ilaah yiraahdo. qolaa tegaysaa waa lagu soxsinina fadhi mudiir waa kuu soo saxiixaya. haddana qol kale tegaysaa waa lagu saxiixayaa. koobiyaale kaa sameysanayaan way kusoo siinayaan. waxay ku dhahayaan madiinata nasr meel ku taalo oo sarwad la dhaho meeshaas gey. haddana meeshaasaa geene waa soo baxay, meeshaasaa geenaysaa. meeshaas markaa geysid warqadii lagu soo siiyey meeshaas geene. ayagana waxay kusii qorqorayaan, waxay ku dhahayaan sheekh al azhar meel qeyb ayaga kamid oo duurka koowaad first floor kasoo saxiixay ku dhahayaan. marka meeshaasaa kuree waa kasoo saxiixaysaa. sheekyaala qolkaan gal yacni wax af laga sheegi karo maaha. waxaan ku dhahay waana la bedbedelay meelaha hadda aan sheegayo oo la bedelay meelahaasaa kamid alxamdulilah. ilaahay mahadoo dhan u sugnaatay. marka qolkaana galaysaa waa lagaaga soo saxiixa, kana galaysaa waa lagaaga soo saxiixa, kaasaa tagaysaa shaabadaa lagugu soo dhufana. 3daas meel markaa kasoo wixeysid waa kasoo tegaysaa. koobiyaa ka sameynay 2 koobi ayagaa kusoo noqonaysaa. kuwii oo isla madiinata nasr qayb ku taalo oo waafidiin la dhaho, kuwa laga dalbado waa iqaamada iyo waxa dhan laga dalbado.
ayaga marka wixiis ku dhacayaan iskoolka tag iskoolka ay imaanaysaa iskoolka marka ay imaanayso warqadii kusoo siiyeen way koobiyeysanayaan ayagana kuwa iskoolka waxay ku buuxinayaan iskoolka cunuga nambarkiisa iyo waxaas dhan ku qorayaan u celiya ku dhaan kuwii haddana u laabanaysaa marka kuwii u laabatid ayagana waxay kusoo sameynayaan haddana kabacdiya lagu soo dhiibaa shiiqa haddana markale lagu celinaya horta shiiqa oo maxaa la dhahaa oo azhar meesha fadhiisa soo saxiixa lagu dhahaa waa lagu soo saxiixaya hoosaa lasoo aadaysaa qeybtaas haddana la imaane soo markaasaa iskoolka usoo celinaya warqada u dambeysay iskoolkaa geenaya gurigaagaas ka aadaysaa waxaan rajeynayaa inaad fahmi doontiin biidnillah soo marka intaas waa laakiin waxaa laga yaabaa inay 2 beri kuugu dhamaato inay 3 beri kuugu dhamaato waxyaabaha wixiinis waxaa laga yaabaa maalinka kow foomka soo qaadanaysid ilaa 4 beri inay kuu noqoto soo kadib cunugaaga iskoolka caadiga kuugu bilaaba wadankuu kaaga rajiiskaraysan yahay iskuulkiisa azhar kaaga rajiiskaraysan yahay soo mar damis ma arkaysay marka labada mar oo wadankan xoogaa la dareemo waxay taa dhib markii iqaamaha doonanaysid markaas ku rajiiskaraysid ayadana waxaad ogaataan inaa maalin walba wax ku kortaagan aysan ahaynin oo iskoolkaas cunugaas inaa ka bedeshid iskool kale aa u rabtid moogi horta mis arkaysin iskool dib dambe rajiiskarayskiisa iqaamadana sanadkii 1 mar waaye soo marka hala adkaysto walaalaha cusub hala sabro insha allah إن الله مع الصابرين كو صبر إلهي معوذو يهي إلهي سبحانه وتعالى صابرين الله نقدقو ودن كان غير كيسا الله سبحانه وتعالى الله نسوي حجيو حدي ودن كو عصوب تهي كيف أبا سمين صبر إن شاء الله قوشة وادكاريسا بإذن الله تعالى هدو إلهي رادو أصحابي سود وادا يا إذن الله يهي مركلة وايدن سود وينا يا بليس هدي أيقو عصوب تهينا إسكرب كري جانالكا إيجا إلوبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.